Assalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada telefishinka xidig. Barnaamijka maanta waxaan uga hadli doonaa tilmaanta ama hagida cusub ee ciyaaraha gobolka Minnesota. Barnaamijka maanta waxaa idinla socodsiin doona aniga oo ah Cabdi Ibraahim. Laga soo bilaabo June 19-keedii waxay wasaaradda caafimaadka ee gobolka Minnesota soo saartay hagid ama tilmaam cusub oo ku saabsan ka qaybgalka ciyaaraha inta lagu guda jiro cudurka faafa ee COVID-19. Ciyaaraha dhalinyarada ee lagu ciyaaro banaanada ama loo yaqaan outdoorka waxay dib u bilaaban karaan June 24-keeda iyo wixii ka dambeeya. Ciyaaraha gudaha ama indoorka iyana waxa ay bilaaban karaan 1 Luulyo iyo wixii ka dambeeya. Tilmaantu waxa ay ku dadaaleysaa inay isku dheelitirto yoolalka lagu yareynayo gudbinta cudurka COVID-19 iyo in loo ogolaado dhalinyarada inay ka qayb galaan ciyaaraha oo leh faa'iidooyin dhanka jirka, shucuurta iyo dhan bulshaba. Waxaa kaloo tilmaantu ay bixinaysaa sharaxaad dheeri ah iyo talooyin loogu talagalay tartamada ciyaaraha dadka waaweyn ee xagaagan. Eeg tilmaamaha ciyaaraha ee cusub iyo jawaabaha su'aalaha inta badan la isweydiiyo ee ku saabsan xarumaha bulshada COVID-19 sida aad u yareyn kartid faafidda caabuqa COVID-19. Weli aad ayay muhiim ugu tahay dadka reer Minnesota inay ku dhaqmaan tallaabooyinka maalinlaha ah ee muhiimka ah ee ka caawinaya inay yareeyaan fiditaanka COVID-19. Tallaabooyinka lagu yareynayo faafidda COVID-19 waxaa ka mid ah ku dhaqanka kala fogaanshaha bulshada, xirashada waji daboolka marka aad joogtid goobaha dadweynaha, inaad isbaadho haddii aad leedahay astaamo, iyo inaad gurigaaga joogtid haddii aad xanuunsan tahay. Iyada oo taas maskaxda lagu hayo, hagista cusub waxay weydiisanaysaa tababarayaasha, shaqaalaha iyo daawadayaasha inay ku dhaqmaan kala fogaanshaha bulshada iyo inay xirtaan waji daboolka mar walbo. Ciyaartoyda waxaa laga codsanayaa inay xirtaan daboolka wajiga marka ay u suurta gasho. Dhammaan dadka waaweyn iyo carruurta ku lug leh hawlaha ciyaaraha waa inay dhaqdaan gacmaha mar walbo, gacmahana ay ka fogeeyaan wajigooda. Hay'adaha waxaa looga baahan yahay inay lahaadaan qorshe ay ugu diyaar garoobayaan COVID-19 kaasoo mideynaya hagida wasaaradda caafimaadka iyo sidoo kale baahiyaha bulshada ee hadda jira iyo shuruudaha isu imaatinka bulsho. Daawadayaal, barnaamijkeeni maanta aan uga hadlaynay ciyaaraha intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. Waxaa xusid mudan in barnaamijkan ay noo suurtagelisay wasaaradda caafimaadka ee gobolka Minnesota. Intaan barnaamijkan mid lamid ah ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo ammaano Allah.